دول بدت كيسة دسي jawaabo ka sii daran haddana waxa u soo jawaabay heesta waayaha cusub alfanaan suldaanka geeska isna wuxuu ka leeyahay nabad iyo nolol inaan wada nahay niyada geliyo waxaan nuxur lahayn ha ku noogina sidaas waxaa dhahaya alfanaan suldaanka geeska hore ayaa waxaa loo yiri hadal badan haama buuxsho bal daawasho wacan دول بدت كيسة دسي دلك يالي إنغالي دلك يالي إنغالي أرضك مدحوينها تركيا هذا معارض نقول له معارض كده نقول له معارض كالسومالي لان sababta aan ku doortay waxay tahay waxay ku dhaleelaan dawladda ama cidda haysa xukunka waxa saxda ay jira markay arrin sax timaado arrin sax markay timaadana danta dalka waa laga wada simeeyaa oo mucaarad iyo muxaafidba ay wada taagan yihiin waayahay mucaaradka Soomaaliland dhinaca haddaan u soo laabano jilista sayd isku tiin dhanka jilista saa isugu si fiican waayahay dad baa fani ku arka caawa ciida maxaad nooga sheekayn lahayd hal sheeko laba sheeko oo fani ah oo is leedahay way naga quslin karaan hal sheeko oo yaan idinka sheekayn xawayaan baa meel isugu yimid fara badan oo marwadi ku jiro libaax dameer xawayaan oo dhan baa meel isugu yimid markii libaax baa wuxuu ka sheekeeyay sheeko aad u qosol badan oo ummadii oo xawayaankii oo dhan ay ku wada qosleen tanaawa soo duwo kale lugtay ku wada rafteen ninkii dameer ahaa uu iska taagan yahay ma qoslayo isagu dameerkii ma qoslayo waxaan lagu qoslayo ma ku qoslayo kuma qoslayo isagu iska taagan yahay laakiin xawayaankii oo kale oo dhan lugtay ku wada rafteen habeenkii meesha lagu kala tagay habeenkii labadii la isu yimid shabeel baa sheeka amba iyo tahayno maraxu ka sheekeeyay dadkii xawayaankii kale nin muu qoslin way iska wada aamuseen wax fanaya ma ahayn dameerkii baa lugta ku rafta waa la weydiiyey war dameer dee wax sheekadan sheeka lagu qoslaa ma ahayn maxaad ku qososhay tii habeen horaan soo xasuusta kulaa waayahay tii habeen horaan soo xasuusta siyaabo kale loo kala farsiran karaa waan ku daynaa waayahay barnaamijkii gabagabadiisa ayaan soo gaarnay waa barnaamijkii ciida qabanqaabayaasha barnaamijka ayaa waxay dhaheen dhinacii isku dayga fahankiisa maadaama uu noo sheegay isku daygii dhanka waxa weeye dhagooleyntii ama midaarkiina aad buu wax u keenay intee in eg baad jimicsataa jimicsiga say isku tihiin jimicsiga saa isuguma si fiicnin laakiin noocee ka heshaa orodka fayda mise rucleynta fayda iskuma fiicnin waayahay dhinaca farsamada gacanta say isku tihiin farsamada gacanta saa iskuma fiicnin cuntooyinka ma karin taqaanaa may cuntooyinka fuulkan karin karaa fuul waayahay cunno aad weli karisay qof ma ku casuntay cunno aan kariyey anoo Nairobi jooga fuul baa ما سوقون بيحد لكن فرن بلقوا عني يا دبي حاسكيجا أو أمو بدل شوية ما شاء الله إن دينا وحن سوق لنا ودهن وحول رجن أصحابها يونيفرسال ورباهين توحيدهن بل أن challenge جرينه إنتين اللي أجبو قعم فدودية أنا جا أهان مركان كلها الله إسماعيل أهان إسكون في عين فرصة ما قعم حكى يابد صح مركان كلها ما ترتميه وحيدهن challenge يربى نص وضنا وأركيا challenge جالس وحويه أوكي وكنا وحيدهن شمع بانو كيني حبط الرقا إمس الشمعه سلطان كي كشري كرا سلطان أوكي صح ترقا سلقو ديبي هل مر بعد داريسا هل مر بريدي يا ترقا هل مر بعد ترقا ريديسا شمعان تاون كوترن انت دارتي واي وقوا
ما توصي أنا هسكع عفوفين هدو مركز دم بسوي كان حبض نفس أرجع وأجوبته اوكي واسبي قاعد فضيت والله صوبحي aad buu mahadsan yahay suldaan seraar guhaad oo ah hobalka ciidan ciidal fidriga ah ee 1441 kan ugu la ciidaya magaalada Jigjiga hadaan nahay bahda Universal TV iyo waliba taageerayaashiisa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa waa Turkey style carwada dharka iyo uduga oo ay leedahay gabadh ugaasadayadii hooda ugaas mahad oo ayada gacan weyn ka qaadatay qabanqaabada iyo isku dubaridka barnaamijkan Turkey style ayaa gacan ka geysatay qabanqaabadiisa aad baan ugu mahadnaqaynaa waa dhalinyarta dhinaca waxa weeye ganacsiga dhawaan ku biiray oo waxa weeye waxay ku takhasustay dharka ragga noocyadiisa kala duwan waayahay waa gabagabadii baan soo gaarnay annagoo aad ugu mahadnaqayno dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo waliba howlwadeennada barnaamijkan isku soo dubariday suldaan dadka intaysan aad noogu caajisin heestii labaad baan isleeyahay aan miiska u soo saarno waa hees cusub aan ku sii dayno kadibna bal aan siira xal wareysano barnaamijka saa ku soo xirno waa heeska labaad in barnaamijka ugu talagalay waxaa ereyada sameeyey abaan xaraf laxanka dab jacayl baa sameeyey muusiga macaan madaxweynaha Turkiga hadaad mucaarad noqon lahayd mucaaradkeed noqon lahayd mucaaradka Somaliland sababta aan ku doortay waxay tahay waxay ku dhaleelaan dawladda ama cidda haysa xukunka waxa saxda ay jira markay arrin sax ah timaado arrin sax markay timaadana danta dalka waa laga wada sameeyaa oo mucaarad iyo muxaafidba ay wada taagan yihiin waayahay mucaaradka Somaliland dhinaca haddaan u soo laabano jilista sayd isku tiin dhanka jilista saa isugu si fiican waayahay dad baa fani ku arka caawa ciida waxaad nooga sheekayn lahayd hal sheeko laba sheeko oo fani ah oo isleedahay way naga quslin karaan hal sheeko oo yaan idinka sheekayn xawayaan baa meel isugu yimid fara badan oo marwadi ku jiro libaax dameer xawayaan oo dhan baa meel isugu yimid markii libaax baa wuxuu ka sheekeeyay sheeko aad u qosol badan oo ummadii oo xawayaankii oo dhan ay ku wada qosleen tanaawa soo duwo kale lugtay ku wada rafteen ninkii dameer ahaa uu iska taagan yahay ma qoslayo isagu dameerkii ma qoslayo waxaan lagu qoslayo ma ku qoslayo kuma qoslayo